السلام عليكم داوديال halkan waa Sadaq Soomaali official kusoo dhawaada barnaamijka xogta maanta qodobada soo qaadan doona waxa ka mid noqon doona safiirkii Shiinaha ee Israa'iil oo meedkiisa laga helay gurigiisa 2 maalmood kadib markii uu ka jawaabay eedeymo Mareykanku u jeediyay dalkiisa militariga xukuumadda Liibiya oo qabsaday saldhiggii ciidamada cirka ee Al-Wadiya oo maalmahan dagaaladu ay ka socdeen iyo golaha dhanka shareecada ee wadanka Liibiya oo ka digay ku lug lahaanshaha saraakiisha dawladda Suudaan howlaha ee Imaaraadka caloosha u shaqaystayaasha ugu ururinayaan Khalifa Haftar baaqna u diray aqoonyahanka iyo culimada Suudaan qodobada ay kuwa kale soo qaadan doonaa mar kale iyo barnaamijka xogta maanta بوليسك إسرائيل أيا أحد الشاعي إن دنجرها شينها إسرائيل جو ويل لجهل الجوريس أوكيا لا مقالة حتى هرزيليا أفينك بوليسك إسرائيل ماك رامل أيا وحو شاعي إن سفيرك أو يمد إسرائيل برتميه بشي فبروري لجهل الجوريس أوكيا لا مقالة حتى هرزيليا إسرائيل أمد وحنا إنت وقدري إن بوليسك أي باريان كيسا xaaskiisa iyo wiilka kaliya oo dhalay safiirka ayaa la sheegay in ay xilligan la joogin kulan noolan Israa'iil danjira wiil waxa uu dalkiisa Shiinaha safiir uga soo ahaa wadanka Ukraine ka hor inta uusan la wareegin shaqadiisa safiirnimo ee gudaha Israa'iil wargeyska maalinlaha ah ee Haaretz ee Israa'iil ka soo baxa waxa uu soo wariyay shaqaalaha safiirku ay arkeen جوي أو ميت إسقى سريرتي سجيفة إسلامر كان أنا جري وح على مدى أو وحيلان أو جبتي سكم مغلى جمعيه دنجرها شينها أنت وح أولنا أي هذا الله كسو يري حكاياها أرمها الدبدة أمريكان ماك بومبيو أو كساب صناع خطرت مالكشي شينها جودها إسرائيل ciidamada xukuumadda Liibiya ayaa gacanta ku dhigay saldhigga ciidamada cirka ee Al-Wadiya kaasoo mudooyinkii ugu dambeeyay ay ku go'doonsanayeen maleeshiyaadka General Khalifa Haftar dagaal qaraar oo maalmahanba socday ayaa maanta ciidamada u suurtageliyay in ay gacantooda ka farmaroojiyaan saldhiggan ayaa tan iyo 2014 waxaa gacanta ku hayay General Khalifa Haftar wuxuu u adeegsan jiray weerarada dhanka cirka ah oo ku soo qaaday magaalada caasimadda ah ee Tripoli taliyaha ciidamada xukuumadda Liibiya ahna taliyaha hoggaanka howlgalka foolkaanada cadhada ayaa ku dhawaaqay guusha ciidamada xukuumaddu ay ka gaareen dagaalkii ka soconayay saldhigga guusha ciidamada ayaa timid kadib markii muddo 24 saac gudahood ciidamada xukuumaddu ay gubeen ilaa 3 ka mid ah raadeerada Ruushka ee noocoodu yahay Benziro ay Imaaraadku ku soo xoojiyeen ciidamadii Haftar ee joogay saldhigga wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamadu ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah raadeeradaasi oo bad qaba ciidamada Liibiya ayaa hadda isugu soo habar wacday dagaalka magaalada Tarquuna oo ah meesha kaliya ee hadda gacanta Haftar ku hartay ee galbeedka Liibiya taasoo 3 jiha ka go'doonsaneed muddo 2 bilood ah dhanka kale golaha cilmi baarista iyo daraasaadka shareecada ee Daarul Fatwa ee dalka Liibiya ayaa waxa ay ka digeen ku lug lahaanshaha saraakiisha dawladda Suudaan ee taakulanta ama gacansiinta ee General Khalifa Haftar ayagoo ku sifeeyay waxa abuudubay sameynayso ganacsi raqiis ah halkaas oo lacag ku soo iibsadaan bay tiri dhalinyarada Suudaan iyo kuwa jaad si loogu laayo shacabka Liibiya golaha oo qoraal soo dhaway bartida Facebook ayaa ku yiri haddii ay ku sifowdo arrintaas saraakiisha dawladda Suudaan waxay khatar ku noqon doontaa mustaqbalka labada dal waxaa intaa ku eegaystayaa barnaamijka xogta maanta aniga Sadaq Soomaali ayaa la socodsiinayay fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe oo nagu soo dir mahadsanid